السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا وناكسن داودياشة قيمة هي قدرتنا نجا مدنو جمعة مبارك. هل كان وتلفزيون كعالمي جاي M24 في حرنس الدحيم مقالة مقدشو ووقت كان نجبرتين ننسو قد بنور وحن نكاه إنه عالم كيد الهان تيبا ورتبين تعاون وحاول دياراني وإبراهيم سلبان هنونيا قد بدأ ورك يقعد كل داون دونتانا وحوجوا وين مدحوينها صوماليا مدن حسن شيخ محمود iyo madaxda ugu sareysa dalka ayaa dhambaal tacsiyaha la wadaagay qoyskii qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ka baxay Garaad Salebaan Garaad Maxamed arday dhamaysatay cilmiga aadamaha ayaa ka qalin jabisay macadka Main Success oo ka howlgala magaalada Muqdisho Dr. Hassan oo kamid ah siyaasiyiinta falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inay u diyaarsanayn siyaasiyiinta bulshada gobolka Banaadir inay u dhistaan maamul u gaar ah qaramada midoobeyna waxa ay u sii kordhisay cunaqabatayntii Soomaaliya ee dhankaasi hubka muddo 2 sano ah wararka caalamka in haynana waxa kamid ah dalka Mareykanka ayaa taageeray dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga sheegana inaan waqtigan loo baahnayn in maxkamad la raadiyo intaasi waxay ahayn qodobada warkayga ugu doorka roon leh iminkii haatan waxaad ku soo dhawaataan intaasi iyo in kale oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda ugu sareysa dalka ayaa dhambaal tacsiya u diray qoysaskii ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Garaad Salebaan Garaad Maxamed oo ku geeriyooday Garowe sida uu warkaasi noogu diyaariyay wariye Maxamed Cabdi Xasan kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada aaska Allah u naxariistay Garaad Salebaan Garaad Maxamed oo Garowe ku geeriyooday xubnaha la magacaabay waxaa kamid ah Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta oo loo magacaabay gudoomiyaha guddigaas 2 Cabdi Samad Maxamed Galan wasiirka wasaaradda amniga 3 Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad wasiirka wasaaradda maaliyadda 4 Maxamuud Aydi Dirir wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka 5 Jaamac Faarax Xasan wasiirka wasaaradda caafimaadka 6 Cabdullaahi Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare 7 Ilyas Cismaan Lugtuur wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada 8 General Muumin Cabdi Shire taliyaha ciidanka booliiska Puntland 9 Cawil Xasan Mataan gudoomiyaha gobolka Nugaal 10 Cabdulqaadir Maxamed Cabdi duqa degmada Garowe dhinaca kale kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ku hadlaya magaciisa iyo kan Puntland iyo shacabka Puntland ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo kamid ah hoggaanka dhaqanka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Puntland ay ku leedahay Facebook anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan golayaasha dawladda iyo kan shacabka reer Puntland waxaan ka tacsiyeynayaa geerida naxdinta lahayd ee ku timid Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Garowe ayaa lagu yiri qoraalkan la soo dhigay barta Villa Puntland sidoo kale geerida waxaa ka tacsiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud barta Villa Soomaaliya ayaa waxaa la soo dhigay qoraal arrinkaasi looga hadlayo waxaan ka tacsiyeynaynaa geerida ku timid Allah u naxariistay qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka geeriyooday Allah u naxariistay Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo xalay ku geeriyooday magaalada Garowe madaxweynaha oo xusay doorkii muuqday ee Garaad Salebaan oo ka qaatay dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya ayaa si gaar ah uga tacsiyay isimada iyo sidoo kale hoggaanka dhaqanka dawlad goboleedka Puntland geerida ku timid Allah u naxariistay marxuumka dhaqanka Soomaaliyeed laf dhabarta u ahaa ayaa lagu yiri qoraalkan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marxuumka Allah uga baryay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo qoyskiisa guud ahaanba dadka Soomaaliyeedna uu ka geeriyooday sabir uu ka siiyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo xalay ku geeriyooday magaalada Garowe gudoomiyaha ayaa Allah uga baryay marxuumka jannadiisa Firdawsa uu ka waraabiyo waxaan dhammaan ehelka qaraabada isimada iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa geerida ku timid Allah u naxariistay Garaad Salebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo xalay ku geeriyooday magaalada Garowe ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay gudoomiyaha ayaa sheegay in Garaad Salebaan Allah u naxariistay uu kamid ahaa garaadada ugu da'da weyn guud ahaan Soomaaliya isla markaana marxuumka uu kamid ahaa aasaasiyaasha maamulka Puntland isagoo waqtigiisa inta uga badan galiyay nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada Puntland
gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ugu dambeyntii dhammaan ehelada iyo qoyska iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland Allah uga baryay inuu samir iimaan ka siiyo. Arday dhamaysatay cilmiga aadamaha ayaa ka qalin jabisay macadka Main Success oo ku yaala magaalada Muqdisho. Maindi waa madal aqoon meeliisa wax walbo macaan. In ka badan 150 arday oo baratay cilmiga horumarinta aadamaha ayaa ka qalin jabisay macadka Main Success Institute. xaflad heerkeedu sareeyo oo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ay soo camireen boqolaal qalin jabiyayaal marti sharaf kala duwan mas'uuliyiin ka kala socotay laamaha dawladda madaxda ugu sareysa shirkadaha dalka iyo waalidiin iyadoo ugu horeyntii agaasimaha macadka Cabdilatiif Xirsi uu hambaliyay ardaydii isagoo uu iftiimiyay waxyaabaha ay bulshada u qabto macadkan muddadii uu jiray. waxaan intaa kadib aad ugu hambaliyaynayaa ardada galabta ka qalin jabinaysa macadka Main Success oo noqonaysa dufcaddii 7aad. sidoo kale waxaan isla u hambaliyaynayaa macadka oo 3 sano hadduu Ilaahay yiraahdo 2 bil kadib ay u xirmayso. taariikh ahaan macadkan waxaan furnay January 2020 kalabada bil ee November iyo December ee sanadka ka dhiman hadduu Ilaahay noo dhameystiro waxaan u dabaaldegaynaa 3 sano complete. 3daas sano waxaan bixinaynaa koorsooyin iyo tababaro iyo diblomooyin dhammaantood ku tacalluqa ama ku saabsan human development ama personal development. why macadkan aan u furno marka waa su'aal meesha taagan. si kooban inta badan horta waxaad ogtihiin aqoonta wadankeena taala waa aqoonta nidaamiga ee iskuulka qaybihiisii kala duwanaa iyo darajooyinkii kala duwanaa ee jaamacadda. laakiin wadankeena waxyaabaha uu aadka ugu yar amaba in laga hela ay dhif iyo naadir ay tahay waxaa ka mid ah aqoonta macadkan Main Success uu soo kordhiyay amaba iminka uu hayo life coaching-ka. si marka gaabka weyn ama baahida weyn ee wadanka ka jirta gaar ahaan magaalada Muqdisho aynu u daboolna ayaan horta macadkan u fur. dhanka kale qaar ka mid ah ardayda qalin jabiyayaasha ayaa soo bandhigay waxyaalihii ay barteen iyagoo u mahadceliyay macallimiintii muddada ku soo tabcayay. waxaan ka mid ahay ardaydii ka faa'iideysatay tareenadii kala duwanaa tababaradii kala duwanaa ee uu bixinayay macadka Main Success Institute. trainingkii aan course-kiisa dhameeyay waxa waaye public speaking and leadership. sidoo kaleete waxaan u mahadcelinayaa naftayda iyo ardayda ila midka ahba kuwa aan isku galaaska ahayn iyo kuwa kaleba. sidoo kaleete waxaan ugu hambaliyaynayaa meesha muhiimka ah ee waqtigooda munaasabka ay ku bixiyeen. qofka bini aadamka ah marka la qiimeynayo waxyaabaha ugu muhiimsan oo beeska u ah oo haasta waxaa ka mid ah waqtiga. الوقت كالسيف إذا لم تقطع يقطعك. marka waxaan ugu hambaleynayaa. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay macallimiinta jaamacadaha iyo mas'uuliyiinka kala socday laamaha dawladda iyo shirkadaha dalka iyagoo dhammaantood ku bogaadiyay ardayda dadaalka ah ee muddada soo wadeen uguna bushaareeyay inay garab taagan yihiin. aqoon-yahanada timid madaxda ka socota shirkadaha ee taageeraysa barnaamijkan runtii waxaan leeyahay wax lagu bixiyo. qofka maanta yimaada halkan ee ugu yar ee waqtigiisa soo bixiyay inuu ardaydan dhiirigeliyo macadkana dhiirigeliyo u yimaada ajir weyn ayuu la laabanaya. waayo dadku waxay yiraahdaan ama noqon midka ma aragtay ii sheegeen wax baranaya ama kan wax baraya ama midka u kaalmeynaya noqo. marka kaalmadii qayb ka mid ah waaye. waxaan idin leeyahay waxa aad barateen ka rur sheega. dhammaan dadku aqoon-yahano ay yihiin. aqoontuna waxay u baahan tahay abaartan ahayd inaan uga baxno, abaaraha soo noqnoqda uga baxno. waxa waaye xirfado la yeesho, baagamuudada iyo shaqo la'aanta laga cabanayo iyo siyaasadda la falanqeynayo looga nasto. muhiimadda la leeyahay qof ha la hormariyo waxa waaye waxa ku jira ee ka guuxaya wuxuu rabaa ahaado. waxa laga yaabaa qofkan inuu xirfad leeyahay, xirfadaas uu gurigiisa dhexdiisa uu ku bartay, markuu isleeyahay bulshadii dhexgee dadkii ha ku arkaan waxa laga yaabaa inuu qofkii cabsanayo. marka cabsida hadday ka baxdo kadib wuxuu ogaanayaa waxbarashadii uu bartay inuu kusoo guuleystay
macnaha waxa waaye marka meeshan uu qofku imaanayo ama macadkan Man Success Institute wuxuu baranayaa xirfad isaga naftiisa ma aragti kor u kicinaysa ma ahan aqoon uu jaamacad ka baranayo bas laakiin waxa waaye qofka naftiisa nafsiyan inuu ma aragti isku dhiirigeliyo waxa ku jira ee ka guuxaya inuu banaanka keeno. ugu dambeyntii maamulaha guud ee macadka Man Success ayaa hambalyo ballaaran u diray ardayda isagoo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan macadkan oo furan hogaamiyayaasha mustaqbalka iyo ubaxa dalkeenu leeyahay oo ah dhalinta. waxaan hambalyo leeyahay ardayda juhdiga iyo dadaalka bixisay isla markaasina arday iskuma jirto arday waa la wada yahay waxna waa la wada bilaabaa laakiin in la wada dhameysto la soo gaaray gabagabo shahaado la qaato ayaa aad u culus. Man Success waxaa intan soo gaarsiiyay annagoo arday ah daraade xafladeeda qalinjibinta ka hadlay isbuuc ka hor waxaa naga go'an inaan wixii aan baranay aan tijaabo ku sameyno waxa aad maskaxdaada ku quudisid waxa aad naftaada juhdi ugu bixisid waxay dhihi jireen kullu inaa'in bimaa fiih yawdih waxa aad naftaada ku maalgeliso oo waqti aad ku geliso oo aad dadaalkaaga ku bixisaa mar walba kaa soo baxaaya inta naftaada aad baabajey iyo ciyaar iyo baashaan aad gelisid in natiijo fiican haddaa waqtigaaga baabajey iyo howlkal gelisid ciyaar weeraa kusoo baxay meel dheer ma aadaysid laakiin haddaa naftaada dadaal iyo tababaro gelisidna horumar aa gaaraysaa. Ibraahim Suleymaan Hanuuniye M24 TV magaalada tan Muqdisho. Qaramada Midoobay waxa ay u kordhisay cunaqabatayntii Soomaaliya muddo 2 sano ah sida uu warkaasi noogu soo diray Cumar Boole. golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo diiday in cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado. Khamiistii shalay ayay golaha ammaanka u codeeyay in cunaqabataynta hubka ay sii saarnaato Soomaaliya, taas oo ay si weyn uga soo horjeesteen dowladda Soomaaliya. 11 dal ayaa u codeeyay in cunaqabataynta hubka ay sii saarnaato Soomaaliya, iyadoo dalalka Ruushka, Shiinaha, Gabon iyo Ghana ay ka maqnaayeen ansixinta qaraarkan. cunaqabatayntan ayaa saameyn ku yeelan karta dagaalada lagula jiro Al-Shabaab, iyadoo kusoo beegmaysa xilli uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safaro ku tagay wadamada qaybta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dad badan ayaa go'aankan waxa ay ku sheegeen in ay saameyn doonto dagaalada lagula jiro Al-Shabaab, iyagoo tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay caqabad ku noqon doonto sii wadista dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyay in cunaqabataynta ay sii saarnaato Soomaaliya. Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho falanqeeyana siyaasadda ayaa sheegay inaan u diyaarsanayn bulshada gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho inay dhistaan maamul u gaar ah si ay u helaan maqaamkooda sida uu warkaasi noogu diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan. Muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ka soconaya dadaalo la doonayay in lagu dhiso maqaam caasimadan ay yeelato si la mid ah maamul goboleedyada dalka, inkastoo lagu kala aragti duwan yahay hanaanka loo marayo dhismaha maqaamka Muqdisho. Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada Muqdisho ayaa qaba in dadka Muqdisho aysan diyaar u ahayn sida uu sheegay xilligan inay dhistaan maqaam iyaga u gaara. maalmahan waxaa la hadalhayay Muqdisho inay yeelato maqaam iyo maamul inay yeelato, waxaa keenay in ay tahay magaalo dayacan oo aan lahayn dad u istaaga. magaalada Muqdisho oo la rabay dowladnimadu inay ayada ka bilaabato oo ka hana qaado ayaa waxaa dhacday nasiib darro inaanay joogin dad xilkaas iyo mas'uuliyaddaas isu xil saara oo ka shaqeeya. waraysi uu siiyay M24 Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur ayuu ku sheegay in dadka caasimadda ku nool aysan u bislayn in guud ahaanba tartan ay la galaan maamulada dalka. sidoo kale waxa uu sheegay in dastuurka dalka iyo sidoo kale waxyaabaha ku qoran aysan wax badan ka ogeyn, taasina ay keenayso sida uu sheegay in dib u dhac badan uu ku yimaado caasimadda. waxa uu tilmaamay doctorku in Puntland ay aaminsan tahay in markay isdhisto kadib ay diyaar u tahay inay dhisto caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale qaar ka mid ah gobolada dalka. dadka Muqdishona ay sugayaan sida uu sheegay in loo dhiso maqaam iyagu ay leeyihiin oo iyagu aysan waxba dhisan. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli, madaxweynaha hadda jooga Saciid Cabdullaahi Deni iyo waxgarad badan oo Puntland jooga si toos ah waxay u yiraahdeen Puntland waxaa loo dhisay
inay isdhisto soomaaliyana dhisto aawe dadka degan magaaladan dad ka soo baxa maxaa loo waaye oo maamul dowladeed sameeya oo lagu kala dambeeyo oo yiraahda maamulkan waxaan u dhisaynaa inaan isku dhisno soomaaliyana dhisno maxaa loo waaye ugu dambeyntii Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur ayaan weydiiyay haddii Muqdisho ay yeelato maqaam u gaar ah halka ay ku shaqeyn doonto dowladda dhexe waxaa si khudba sir ah marka ku haysta marka ninkii yimaada villa Soomaaliya su'aal waxay tahay intuu aada haddii la dhaho xamar dadka jooga is xukumaay intuu aada waa cirka jarjara saara maano waa ogeed wixii meeshaan isbaarana loo dhigtay iyo rafaadkii nagula dhigay iyo ilmihii inay iskuulka aadi waayeen oo wasaaraddan arrimaha dibadda horteeda gabar Soomaali ku foolatay iyadoo isbitaalkaas loo diiday oo meydkii dhagxaanta laga gudbay waa ogeedo la rafaadinay dadkan wararka dibadda aan idinku haynana waxa ugu waaweyn dalkaasi Mareykanka ayaa taageeray dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyagoo sheegay inaan waqtigan la saaraynin maxkamadda dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii ku talisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka reeban yahay in lagu furo dacwado sharci oo la xiriira dilkii 2018 ee wariye Jamaal Khashoggi sida ku cad warqad maxkamadeed Maxamed bin Salmaan ayaa bishii Sebtembar loo magacaabay ra'iisul wasaaraha taasi oo dhalisay tuhunno ku saabsan inuu isku dayayo inuu ka baxsado dacwado looga furay maxkamado dibadeed oo uu ku jiro kiis madani ah oo ay dalka Mareykanka ka furtay xaaskii Jamaal Khashoggi dilka Khashoggi oo 4 sano ka hor ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa Maxamed bin Salmaan si ku meel gaar ah uga dhigay mid laga go'doomiyay dalalka reer galbeedka qareenadiisa ayaa horey u dooday inuuna halkaa u sareyn uu ka joogo dowladda Sacuudiga sidaas darteed uu haysto xasaanad maxkamadaha Mareykanka siiya madaxda dalal ama saraakiisha haya xilalka sare dowladda Mareykanka ayaa haysata ilaa Khamiistii shalay si ay u cadeyso fikirkeeda ku aadan arrintan tala soo jeedinteeda ama ay maxkamaddu ku qasaban tahay dowladda Mareykanka waxa ay si xushmad leh uga wargelinaysaa maxkamadda inay eedeysane Maxamed bin Salmaan ra'iisul wasaaraha boqortooyada Sacuudiga uu yahay madaxa dowlad xilka haya sidaas darteed uu xasaanad ka haysto in dacwad lagu furo ayaa lagu yiri qoraalkan oo maamulka Biden uu u gudbiyay maxkamadda federaalka ee degmada Washington hase yeeshee qoraalkan ayaa waxa intaasi lagu daray waaxda arrimaha dibadda waxa aragti ah kama bixinayso saxaanshaha dacwadda waxayna ku celinaysaa cambaareynteeda aan gambashada lahayn ee dilkii foosho xumaaya Jamaal Khashoggi qodobkaas waxa uu guniya gunaanad u ahaa warkii oo idinka imaanaya telefishinka caalamiga M24 TV xarunta magaalada Muqdisho oo idin soo tabinaya anigoo Ibrahim Salabaan Hanuuniya inta war sidan oo kale aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaanallah